أنا واحد قال لنا وحوالها يجا بدأ يجا دليل يجا أيان قال لك الله كينيا كذا ووعدها يوهنتي يجا قوي بالبوليس دبنا ويا هنا قبل لا كوفرصة وعكس على وارك شيء بدك ليش حوالي ليش أساس حوالي وصل لوجوس أنا حلقة وحكوت لا وأنا قانا شواب وحين ليس ملك حكم كاس العف أنا محكمتنا وجود دني ما سياسي العام كمان هذين أنا وهذين دجال كمان هذين ركبان هاي dadweyne aan nahay Soomaalidan laha ana Soomaali cadkeega waxaan doonaynaa maalintii maxkamadda xukunkeedu dhaco jawaabta kii helaysa jawaabta helaysana waa la ogyahay Soomaaliyeed xageedina waana helaysa aabay noo arkaysaa Kenya lama arag wali laakiin Kenya jawaab degdeg ah baa la siinayaa dawladana ka sokow waxa siinaya dadweynaha وهذين نمك وهذين مركب والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka hadlayaa arinta Kenya iyo Soomaaliya ee ku saabsan xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya horta waa laba wadan oo jaar ah waa laba wadan oo ka dhaxeeyo xiriir ganacsi intuu doonaba hal leekaday waxaan ognahay in Soomaalida maanta boqolkiiba 50 ganacsigeeda uu yaalo magaalada Nairobi taasina ay ugu wacan tahay burburkii dalka ka dhacay haddii aan u soo noqono xuduud badeedka horta Soomaalidu waxay ku maamaadaa nin nool xoolihiisa lama dhaco maanta Kenya horta si gaaban ayay u fikraysaa soo dacwadani waxay taalaa maxkamadda ICJ waxaway si official ayaa loo geeyay oo sharciya waxayna uga soo baxaysaa natiijadu si sharciya natiijadana adduunka maanta waa la wada og yahay inay macnaha Soomaaliya badan ay badeedii tahay laakiin ay meesha taalo ku qabso ku qadimaysiday haddii aan taariikhda Kenya dib u eegno Kenya waa naqaana waxay gashay waxay guddo burburkii dalka ee ugu dambeysay 1990kii كوبيو صدمكي بشي ديسمبر وقتها كبلو وحي كوريي كينيا Soomaaliya waxay leeyahay takhsiyaad saahade burburkii Soomaalida ayaa nasiib daro heerkan gaarsiiyay iyadoo waliba gacan ka helaysa dad isku sheegaya mas'uuliyiin Soomaaliya dad isku sheegaya ayay garab ka helaysaa dadkaasi oo marka aan eegno aanay wax wadaniyada haba yaraatay ku jirin waa nin daad qaaday horta xumbe cuskay weey Kenya marbay guuleysatay oo nin gaalihi dhur siiyay si yaro raqiisana ku qabsatay haddana waxay la tahay inay ku qabsato badina inay ku darsato si yaro raqiisa ku qabsato mana ku qabsan doonto ninka Soomaaliga sheegaysa waa nin caalam ka dhigtay Soomaali ma dhigan ninka maxkamadda mas'uulka ka Soomaali ma dooran caalam ka doortay nin cadaalad fadhiyana weeyi Soomaaliduna ma siinayo Kenyana wax ma siinayo sharcigu wax siinayo isugu diidmada ay diidantahay waxa weeyi geedku xoqosha leedah waxay leedahay ma jiro waxay ogtahay damac yadu hayaa oo meel marayn iyo isku cadaynaysa damaceega Afrikada tujirta ma aha maartayada laba goor jumcada qurumaha ka dhaxaysata kursiga fadhiisatay Djibouti oo mar qura fadhiisato xaq uga leh iyay ka siiyeen Afrikada lafteedu waa isku xashadiis sawaaxilinimay wadaan xaq iyo cadaalad kuma wadaan iyaga laftooda kuma kalsoonaanayno Soomaali haddaan nahay waxayga dhimasha ka xignaa maxkamadana lagama soo qaadi karo maxkamadana dib loogama dhigi karo waqtigeega waqtigu waa waqtigay qabatay hadday wax ku hesho maxkamadda hadday wax ku weydo maxkamadda weeyi waxaan leenahay tii horaan kugu dacweynaa waxaana Soomaalida faraya LFD
9 baan Soomaali baan ahay tiri Ingiriis baa xoog ku wareejay hadday Soomaali jirto niman maxaa sharciyada yaqaanay dawladda Ingiriiska maanta in la dacweeyo way oo boqorada la dacweeyo oo dimuqraadinimadii ay sheegayeen 9 foodka ay Soomaali ku doorteen RLFD ay Kenya ku siiyeen in laga daba tago waa Xasan Daawud Maax haddii aan ka hadlo arrintan badda Kenya iyo Soomaaliya isku haystaan waa arrin aad u weyn waaye marka Soomaalida dagaalo sokay ay soo gashay 30 sano ay soo dagaalamayso Kenya waxay rabtaa inay ka faa'iideysato macnaha qoqobnaanta Soomaaliya ka jirto marka anaga haddii aan shacab Soomaaliyeed ama qof Soomaaliyeed haddii aan ahay waxaan ka soo horjeedaa arrinta Kenya ay wadato oo dhulka Soomaaliya ay ku boobayso waan ka soo horjeedaa midnimo la muujiyo ninkii Hargeysa jira ninkii Djibouti jira ninkii Gaarisa jira Jigjiga jira Soomaaliya meel kasta joogto hal taako oo dhul Soomaaliyeed la qaato anu waa ka soo horjeedaa Soomaaliya nahay dhulkeena in si fudud loo qaato ma ogoli Kenya waxaan lahayn bay doonaysaa haddii Kenya ixtiraami weydo xuduudaha naga dhaxeeya saan daris u nahay iyo waxa dan naga dhaxeeya annagu waan naqaanaa waajibkay waan gudanaynaa dal Soomaaliya meel ku yaala Kenya ma qaadi karto kamana qaadi karto shacab ahaan uga qaadi karmayso garna ahaan uga heli karmayso waxa la yiri hal diidan geed ay ku xoqoto ma weydo in gartii ay soo dhawaatay oo bisha 9keeda loo ballansan yahay og tahay ninkana leedahay waa Soomaali oo meeshu jooga uu naga xaqlinayaana waa nin maxkamadda caalamka adduunka waxbarasho ku yimid iyo aqoontiisa halka gaarsiisay dad bana u dhibtay xilkan marka waxa weeye hal diidan geed ku xoqato ma weydo ummadda Soomaaliyeed ee kale shacabkana waxa ugu baaqayaa inay arrinta ka hadlaan oo ka dhidhiyaan haddana waxaan ogahay Kenya inay raadinayso oo ka dhex baarayso dawladda ama xukuumadda hadda jirta dad lacag qaata oo yaani dareerto la siiyo Kenya mid kale waxay hadda leedahay sidii aan wax u qoray qoraaladii aan gudbinay yaa aad u dabacsan oo aan rabnaa inaan dib habeen ku sameeyno oo qaab yaani ay lacag ku raadinayso oo abiil dahsoon ah bay doonaysaa maxkamadda 9 bisha laga doonayo inay hor istaagaan in dib loogu dhigo haddana Kenya xoogaa yar oo biriga ay ka heleen baa jira oo xoogaa lacag yar oo qaatay Moi Kibaki taasoo hadda wali wuxuu ka rajo qabaa inuu xuduudihii iyo gobolkii la oran jiray magaciisiga Jubbada hoose iyo xukuumaddii dhexe ee dalka inuu ka dhex baaro bal dad lacag la siiyo balse waxay ila tahay taas waa dhamaatay haddii qalad iyo dad caloosho u shaqaystayaal oo hadda koor ku dhex arkay damaanadda qaranka Soomaaliyeedna kuwaasi waa geeriyoodeen kuwan hadda xilka haya hadday baarlamaan yihiin hadday golo odayaad yihiin hadday heer madaxweyne tahay iyo hadday heer golaha fulinta tahay iyo hadday shacab yihiinba sheeko iyo af looma baahna Kenya hubay diyaarsatay ciidamay diyaarsatay waxay haddana ku hanjabaysaa haddii la xukumana waa okay haddii la xukumi waana waa okay sidaa darteed waxa marka muhiimadu tahay inaad adunkuna tiraahdaan midka biriga ayaan leenahay ee hanaloo mitiriyo dhulka biriga sababtoo edab darada ay wado edab dara loo miisi karaa waana mid xabad u baahan xoogaa waxa moodaa kulli macal shacabkiin waxaad moodaa inaad nolol kale ka dhex raadinaysaan Kenya iyo wixii la mid ah bareerkii Frontline of Africa ee ciidamada horyaalka Afrika qaabkii iyo qaraarkii wuxuu dhigi jireen hal la raaco manhajka ciidamada qalabka tan hal la raaco dawladda taas faral ku ah inay gudato waa inay 9 bisha dawladdu ciideedii wakiil uga ay hor istaagan garsoorka kadib markii hor istaagaan bas waa inay keenaan ayagoo calankii ku isku wada iyo biyihii dalka qofka beenaalaha ama beenta sheegaya waxa lagu yaqaanaa xilliga waqtiga uu soo galo dhiiranaan iyo hawsha inuu ku dhiirada ma laha laakiin mar haday maanta waqtigii gabagabo isagoo jooga ay maanta tiri dib hana loogu dhigo waxa meeshaas ka cad meesha inayna dawladda Kenya waxba ku haysanin dawladda Soomaaliya waxaan kula talinayaa inay si dhiiranaan leh oo adkaysi leh kiiskaas u gasho kuna dhaqaaqdo waayo kriteeriyada dalka Soomaaliya wax laga marmaana way ilaalintiisa siyaasad ahaan iyo quwa ahaan iyo awood ahaan iyo xeelad ahaan midwna qofka loogama taraajulayo wadankeena qaybo kamida iyo waxa weeye area-da iyo deegaankeenna cidna wax munaasab oo in dad looga hibaysto ma aha
dowladda Kenyana waxaan leeyahay dee waad fashilanteene fashilkiinuna wuu caddaaday dee intayna waqtigu idinku dhicin oo qaraaradu ayna soo bixin waa inaad ka laabataan oo dhahdaan annagu meesha waa ku fashilannay marka insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda hawshaas gabagaba ku dhammaan doonto maadaama waqtigii la mudeeyay bahda 9 bisha iyo waqtigii wax la mid ay ahayd inay insha Allah soo dhammaan doonto wasiirka arrimaha dibadda iyo ragga garbihiisa ah waxaan leeyahay tahniyad baa idin sugnaatay waa inaad qaraar qaadataan go'aan rasmi ah aad ka soo saartaan oo xoog leh waliba waxaan dawladda Soomaaliya hadda waxa lagu dhaliilay waayahan inayna wax qaraar ka qaadanin way maadaama oo maanta ay caddaatay xilliga waqtigii soo dhawaaday inay tiri dibana loogu dhigo inay go'aan qaataan oo waxa weeye wadanka gudihiisa iyo waxba waxa weeye yaan loo yeelay laakiin go'aamo rasmi ah ay ka qaataan ay kuna dhawaaqaan inayna ka aqbalaynin dawladda Kenya waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxa ay doonayaan oo ay jecel yihiin maanta de way iska muuqataa maadaama ay fashilantay dawladda Kenya inay dawladdeena ku dhawaaqdo inayna ka yeelaynin marna codsiga ay soo jeedisay codsigaas dawladda Kenya ay soo jeedisay oo ay tiri dib hana loogu dhigo waa wax aan ka soo horjeedno bataatanba in la ogolaado dawladda waxaan kula talinaynaa gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo ragga la shaqeynaya inayna ka ogolaanin dawladda Kenya qaraarkaas in laga laabto